لا هو طول فودو هذا شرقرية ليفكن هاي عاد دي سلامي دمانتين وافيينكي بيشا دارود أحمد فوضى عدي والروا إنو كهل دور قضبو مهيمة قلبت waxaa ka mid ah qodobada miiska inoo saaran galabta kabtan ayuu oo ka adkaaday daahir calasow oo sheegay inuu looyarkiisii gaarsiiyey kabtan ayuub waxaa kaloo ka mid ah maqnuudkii reer marko shariifka oo isaguna baahinaya oo la wareegaya fireeyo been abuur ah ayna adeegsanayaan daahir calasow iyo tiimkiisa ha dhaqlayso raggu waa isbaranayaa muuqaalkan sii sheergareeya waxaan rabaa inaan dhowr qodob ku raaxaysto oo ku ruqaansado oo ku laandheereeyo horaan idinku sheegay hadalkayguna waa horaan idinku sheegay in aan baraha bulshada daahir calasow iyo tiimkiisa uga adagna daahir calasow iyo tiimkiisa ha dhaqlayso inaan baraha bulshada uga adagnahay horaan idinku sheegay sababtoo ah daahir calasow iyo tiimkiisu waxay caalaysteen inay beegsadaan haweenka iyo ciyaalka inay beegsadaan dad aan waxaweeye maataa inay aflagaadeeyaan dumarka inay waxaweeye carruuraha meelaha bacbacsadaan laakiin rag isma arag waxaa caddayn idinku filan inaysan rag is arag oohinta iyo baroorta iyo calaacalka iyo ba'a iyo balambalka maanta ka muuqda annagu haddaanu nahay dhallinyarada baraha bulshada isticmaasha khaasatan haddaanu nahay dhallinyarada daarood laabta ma garaacanno ma faanno isma buunbuuninno been abuur ma sheegno cid baan ka adagnahay ma dhahno waxaas baraha bulshada oo Soomaali weyn oo dhan wada isticmaasho oo Soomaali oo dhan ay wada joogto annagaa maamula annagaa noo daba fadhiistaa meel heblaan ka soo dhaxalaynaa meel heblaan sidaa yeelaynaa waxaas faan baan u naqaanaa mana beegsano haweenka soo dhow beeldaas mana beegsano haweenka iyo maatada waxaad ogtihiin ha dhaqlayso group inay baraha bulshada ku shaaciyeen inay dhaheen meherada dad caan ah aan ka soo dhaxalaynaa meheradaha dadka caanka ah oo ay leeyihiin waa ka soo dhaxalaynaa waxa ka mid ah kabtan ayuu meheradiisa shiino culay meheradiisa iyo dhowr dhalinyaro oo kale oo baraha bulshada caanka ah khaasatan beesha daarooda waxaad aragteen dhalinyaro badan oo hawiye ah ama ha dhaqlaysa tiim ah dhankii doonaba ha noqotay hadday qabyaalad noqotana hawiye ah oo leh waxa aanu garab taaganahay daahir calasow madaxweynaha baraha bulshada oo istiikaro been ah u soo sameeyay daahir calasow waxaad kaloo maqlayseen ayaamahan baa u jeedeen daahir calasow oo social media wareejinaya hebel baan ka adkaaday heblaayaan ka adkaaday ninkanaan sidan u galay maantase maxaa idii cad boostigii ugu dambeeyey uu soo qaatay iyo boostigii ka sii dambeeyey laba boosti uu soo qaatay midna isagaa isku ceebeynayo oo been abuur buu sheegayaa nin rag ah hadda waa nin raga wuxuu leeyahay naag buu la raaxaysanayaa faraan ka haya fiiriya hore waxaa aragteen daahir calasow wareejinaya fiiriyow la wareejinayo fiiriyow uu naag leeyahay dabadaada i tus daahir dabayste bay tireen iyo joker daahir dabaystow makhnuudnimo baa isku cadaysay sababta makhnuudnimo isugu cadaysay waxa ka mid ah nin raga baa leedahay guskiisaan wareejinaya oo adeerow nin raga hadduusan waxa weeye naag jawi la qaadan ama uusan qoorihiisa naagi waxa weeye nin raga naag unbu waxa weeye raganimadiisa u bandhigan karaa maadu ku fuuli lahaa maadigu ku fuuli lahaa adiga iyo ninka shariifka ah wadato ee isaguna caanku dhalaya ee la yaqaano meeshu ka soo jeeda waxa weeye marko oo taariikhdeeda aan wada ognahay adiga iyo waxa weeye shariifka iyo afarta kula socda ee koonfurka la soo jeeda waxaa wareejinaysaan iyo waxaa faafinaysaan dhaqan ragna maaha meelna uma soo maro dhaqan ragna maaha dhaqan iyo caadana uma lihin haddaan nahay dhalinyarada beesha daaro ee baraha bulshada isticmaasha idinkay magac xumo idii tahay
idinkay ceeb idii tahay cid aa wax ku yeeli kartaan ma jirto qodobka kale aan u soo degayaa waxa weeye daahir calasow waxa uu ku booteeyey horena aan idinku sheegay uuna ku booteeyey inuu baraha bulshada madaxweyne ka yahay maantana maxaa aragteen boostigii ugu dambeeyey uu soo qoro inuu ku caddaynayo inuu looyarkiisa aaday oo adeerow haddaa madaxweynaha baraha bulshada ahayd maxaa looyarkaaga ka dontay looyarkaaga maxaa ka dontay yaa ku gaarsiiyey heer aa looyar aado yaa ku gaarsiiyey heer aa looyar aado wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi nimankaa bahdilka iyo duruufta aan ku hayno haddaan idiin sheegi lahaa waxa aan maraynaa xitaa marka aan dhaawacno oo fiidiyooyadooda waxyeelayno inaana sheegin hore waxaan idinku sheegay barteeda beejkaygana aan ku soo qoray inaan soo baahin doono howlgalladii ugu dambeeyey aan qabannay howlgalladii adeer fiidiyooga sheergareeya nacallaa shiidaankiina ku yaala beejka cusubna fulow dhah fiidiyooga sheergareeya karbaashkan daahir calasow waa ha dhegaystee hore waxaan idinku sheegnay inaan soo baahin doono wallaahi intaan dib isugu noqonnay baan waxaan nidhi heer waxaan gaarsiinaynaa iyagu ay sheegtaan oo dhahaan fiidiyooyaa nala ka saartay xitaa innagu sheegan mayno innagoo waxyeelaynay innagoo fiidiyooya ka saarnay innagoo waxa weeye xoogga saarayna sidii aan u soo aftari lahayn been abuurkoodana u beenin lahayn xitaa ma sheeganayno baan gaarsiinay wallaahi ma sheeganayno beerma dib baan isugu noqonnay kibir iyo qabka nugu jira iyo laandheernimada naga muuqata macnaha maanta waa aragtaan daahir calasow oo afkiisa kale fiidiyowgaygii aad iga waxaysay looyarkaygaan u dacwooday oo adeer gacali haddaa madaxweynaha baraha bulshada ahayd maxaa kugu dhacay maxaa isku difaaci weyday yaa maxaa isku difaaci weyday maxaa fiidiyowgaa u difaacan weyday maxaa dabadaada bannaanka dhigay maxaa looyar u aaday midda kale haddaa looyar leedahay yurub waa la wada joogaaye ma ninaan looyar lahayn baa jira haddii ay caddaan iyo maxkamad tagto oo waxa weeye nin walba uu looyarkiisa aado adeer ninna kama caddaan badnid ninna kama maxkamad weynid ninna sharciga kama badisid halka aad joogto adiga iyo afarta beeshaada ah ee waxa weeye 10 casho gruubka wada saaran ee gruubka u saaran gabadh inay la ficiltamaan iyo waxa weeye inay wiil yar la ficiltamaan yaa rag maanta is aragteen 4 cisho gudahood baa rag isku aragtay 3 cisho xitaa 3 cisho 4 cisho durba maalinta rag is aragteen dabadaada bannaanka taala waa adiga soo boosti garaynaya looyar baan aaday fiidiyoo waan dacweeyey madaxweynaha baraha bulshadaan ahay iyo looyar baan aaday meel ma wada gasho ismana raacdo waxaa beegsataa waa haween waxaa beegsataa waa dumar annaga farmaajo maanta qodob baa idiin sheegaya annaga haddaan nahay dhallinyarada beesha daarood ee baraha bulshada isticmaasha farmaajo hal mid baan ka dhaxalay ma idiin sheegaa middaan ka dhaxalay halka mid aan farmaajo ka dhaxalnay wuxuu yahay inaan hawiyaha ku gumaadno aamus annagoo aamusan inaan wallaahi bilaahi layno yacnaa inaanan faanin niman baa arki jirteen musharaxiina oo waxa weeye dhahay xamar unukaale iyo xamar annagaa saan yeelayna iyo xamar unukaale maxaa ka dambaysay farmaajo suu u galay waa garanaysaa inaan kabahooda ka cararaan soomaa xamar dhexdeeda inaan kabahooda ka cararsiinno inay isla xamar dhexdeeda ay cararaan ordaan xabad afka aan ka gelino soomaydina arkin xasan cali khayro cararaya soomaydina arkin cabdixaan abshkuro cararaya imise sanuu soo laa xamar unukaale maryaa annaga ma hadalno annaga gacanta ka hadalna afka ma hadalno annaga ma faanno annaga ma bootayno annaga dhaqdhaq ma naqaano annaga farmaajo ka adkaanay ma naqaan annaga waxa weeye siyaad banaan bixinay ma naqaan annaga marxuumiinta xawaalaha kanoo soo baxno annaga cid nin marxuunoo dhintay ma aflagaadino annaga waxa weeye caydiid baa dhintay oo qabqable ahaa annagoo caayino aflagaadayna arki maysi annagoo waxa weeye qof dhintay oo maata waxa weeye maanta inaga hooseeya caayina arki maysi laakiin siyaasad iyo aamus baan uga adagnahay hawiyaha wallaahi kooda siyaasiga ah iyo kooda baraha bulshada jooga labadaba waxaan uga adagnahay aamus annagoo aamusan baan laynaa cilmi baan uga adagnahay waxaan uga adagnahay siyaasad waxaan uga adagnahay baraha bulshada xitaa waa kaga adagnahay baraha bulshada xitaa waa kaga adagnahay sababtoo ah wiilkii ay hawiyoo dhan majiiranayeen wiilka hawiyoo dhan ay mahadinayeen wiilka hawiyoo dhan ay borofoolada wada saarteen wiilka hawiye oo dhan ay borofoolada wada saarteen waxa indhihiina aad ku aragteen oo maqasheen isaga oo maanta ka calacalaya kabtan ayuub baa looyar baan u qabsaday kabtan ayuub gaal baan dabada la galay gaal futacad
baan dabada la galay madaxweynihii baraha bulshada heer waxaan gaarsiinay uu gaalo aado meeye adeer wiilashii guruubada kula saarnaa wiilashii hawiye ee guruubada kula saarnaa meeye may ku caawiyaan meydinaan IT-ga aqoon may sooyidkii baraha bulshada xukumayay maqaayadii ka soo dhaxaysan ma ka soo dhaxadashaan faan iyo faataabaq baa ku haystaan iyo ina haweenka iyo maxasta beegsataan wasaaso waxa weeye ciwaanadiina wali ku joogan oo YouTube-diina wali ku joogan fiidiyoo baa saa uga cabanaysaan tamartiina intaa weey adeerow gacaliyow rubba idin sheegaya meesha tan faataabaq baa ku haystaan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa fardo la isugu joogo la isuguma faano annaga faanka ma naqaano annaga faani mayno annaga gabdhaheena xitaa dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha ee caanka ee beesha daarood xitaa way ignore gareeyeen halka Cabdiqaadir Boos uu ka soo hadlay halka uu kii Shariif ma taqaanaa maxaa arab la oran jiray sheekhaasha oo ka soo hadlay halka shaanshi xitaa ay ka soo hadlayso oo reer xamar isku tihiin Shariifka مخنودك على كابتن أيوب أنا ما قلت مقع مالان ما بحو ولا جاي ما أرق أو ما مغل نرجع ولا نبى جوزكي سي نبى ناقل راح يستي ولا راح عمره حشود وحص وحرق له يا طماع بين يفاتا بخ يوحوي بين أور دل ورقتان يا مرنا اعتراضان دوضان تعلي دوضان نتصى مرنا اعتراض هاي الجوز ما يذكي أهر ما يذكي يذكي لها مدودا ودغان haydeen marka nin guskiisa faafinaysan oo leeyahay heel baan guskiisa haynaa oo waliba been abuura isagoo runa xitaa haday tahay isagoo runa ya midka dad u dhigan laha hadii sheegaya wallahi siyaasadda way ka adagnahay oo billahi been sheegay farmaajo bixinay been abaa isbarteen oo waan soo noqonay maxaa Abdullaahi farmaajo waxa idin sheegaya baraha bulshada way ka adagnahay oo rag 3 cishaas aragteen 3 days saddex cisho idinka calacalaya maanta loo yarada ftada galay haddaan 10 cisho sidii niyaa gruubada ku saarnaydeen 10 cisho haddaan idin saarnaan lahayna see yeeli lahaydeen adeer gacali khayr Allah siiye oo baabi ilaahayeen Soomaa fiiriyoogan hal la gaarsiiyo daba jilicsanay dabeel cali suuq wali waxba ku dhiman wali halkii aanu kula rabnay ma gaarin adigoo ooyo calacalayo oo la tolaayay daarood baa iga adkaaday tolaayay ilaahay baan ku dhaartay Facebook inaan ku keenaa nagu balana ama gabar soocay ama wax way cid kale aflagaaday annagoo rag ah annagoo aamusan oo aan gabdhana caayin cid kale bini aadana aan aflagaadayn baan isla afkaaga waxaan gaarsiinana heer aad ku qirato inaan ka adkaanay heer aad ku qirato inaan ka adkaanay sida maanta aan laba fiiriyo oo wax way laga saaray aad looyarka ugu dacwootay baan waxaan ku gaarsiinaa inaad ku sheegato in wax way baraha bulshada laga adkaaday in nin miskiin oo maata tahay inaad dadka been u sheegi jirtay inaad shacab ka tahay arrimahan in IT-ga laga badiyo in qabyaaladda laga badiyo in cilmiga laga badiyo in wax kasta oo adiga aad isbiday lagaaga aqoon badan yahay lagaagana sababta 15 sano Yurub joogta yaa xariso 15 sano adiga Yurub jooga wiil 2016 Yurub soo galay yaa inuu ka cilmi bato kaana wax weeye aqoon bato Soomaan gaabnimo ma Soolandeerno ma soo booto iyo faataabaq ma soo ban abuur dadkaaga iyo maataada iyo haweenka kan profile ku saaranaya u sheegaysa ma soo dawada jilicsan oo xidsan weyda ma soo lawyer lagu ma gaarsiin wallahi maxkamad iyo lawyer baa tiri ma aha hal uu gaarsiinaya heer aad raaligelin soo bixiso raaligelin cad heer soo bixiso gabdhahan aad ku dhigan tahay iyo marba aad wax weeye wax soo dhahayso ya algaaga daba imanaya dhigid baan algaaga celinaya cilmi iyo aqoon aad baa idin salaamaya fayeenkii beesha daarood oo ku dhakhleynaya weeye bartiisa page-kiisa Facebook page-kan follow gareeya sii share gareeya oo fiiriyoogan gaarsiiya ha dhakhlayso group waxa aan soo wadnaa wax intii hore ka badan page-kan fayeenka laga sheegaya wixii dhacdooyina oo wax weeye soo kordha iyo guulaha aan gaarnay iyo meedka iyo dhaawaca ha dhakhlayso group halkan aan ka shaacin doonaa wallahi billahi habeen hore been idin sheegi maaye xitaa waxa aan gaarsiinay inay iyagu afkooda ka sheegtaan annaga aanan sheegan fiiro hebel baan saarnay meel hebel baan xirnay sidaan aan yeelnay halkan aan marnay yacni bahdil iyo macnaha waxa weeye nimanka aan ku hayno
waxaan gaarsanay inaan anagu sheegan meelaha aan ka saarnay ilaa iyagoo ay qirtaan maanta kale anaga dhooqaysan karnaa marka iyaga soo cataabaan war boostiyadii bay saarayaan waa isku noqdeen boostigii u dambeeyay Daahir Calasow uu lahaa lawyer baan qabsaday beedkiigaan soo dhigay fiiriya beedkiisana ka soo fiiriya uu dhilid gareeyay muxuu dhilid gareeyay soo inaan ka adkaanay ma saddex habeenoo kaliya oo caqliga loo fakaray ayuu heerka ku maraya oo boostiyada ku dhilid gareynaya oo fiiriyada ku saaraya ya 10 cisho gabar caayay 10 cisho la gabar ma TikTok ka xiray 10 cisho hawiye shirinay 10 cisho group saarnaayeen 10 cisho laba nin baa ka adkaaday laba nin baa u fariistay khubraa laba nin oo khubraa oo u fariistay waa ka adkaaday oo maanta cata waa gaarsiiyay rag waaweyn oo waxa weeye intan ka sii waaweyn oo 10 ah hadday isku imaan lahaayeen oo shir lahaayeen ka war isagoo ooyo ay arki lahaydeen Soomaa isagoo ooyo arki lahaydeen ballan waxaan idin qaaday inaan indhihiina aad ku aragtaan Daahir Calasow ooyo iyo tiimkiisa ha dhakhlayso oo ooyaya oo afkooda raali gelin ka bixinaya oo afkooda ka qiranaya inaan ka uga adagnahay social media sida aan siyaasadda uga adagnahay tabta aan siyaasadda uga adagnahay oo aamuska aan ku leyno aamuska aan ku bajaqino aamuska ay kabahooda uga cararaan ya annagoo waxa weeye eg waxaa la yidhi waxaan waa hirdhi jiri weeye aamus waa jawaab inaan faano oo been sheegano iyo limin waxaa ka karaamo badan adigoo afkaaga haysta oo aan cidna aflagaadeen cilmi iyo caqli inta isu geyso inaa dambaska ka dhigto waxa ka wada dulmari karto hadhowna dhaawac ay meedka sheegato tirada halka ana ka wada dulmaray halka ana ka wada dulmaray maanta anu waa dhooqaysanaya maanta aniga hadal baa ii furan sababtoo ah waxaad arkayseen baryahanba wiilka yarka oo social media wareejinaya maqaayad Hebland ka soo dhaxalaya iyo reer Hebel baan ka adkaaday iyo daarood unuka ka adag iyo daarood siyaasadda uga adagnahay horta daarood ismeedina arag wallahi idinaan daarood saaragay bilaa wallahi idinaan ogaadeen arag oo qabiil waxa weeye daarood ah ayna isu imaan karin inay hawiye ama afarta wiil ee social media jooga ay bajiqiyaan iskama gaarno adeerka wiil kabla la hartiya baa ku helay fiiriyada ka saaray ya aku soo socota inta waxa weeye inta wixii dheer oo ku socota si sheer gareey muuqaalkana gaarsiiya dadkayga shacabkana fiyanka wahay waxaan idin sheegayaa inaad horta page-ka follow gareysaan inaad kala socotaan guulaha aan ka soo hoyno social media iyo sida aan ugu bahdilayno jugta culus Daahir Calasow ha dhakhlayso group teamkooda sida aan uga adagnahay mar walba aan u bahdilno mar walba aan wax weeye aan u yasno oo u ignore gareyno goobta kala soconaysan halkan si shar gareeya gaarsiiya wax badanna waa soo socdaan waxa soo socda laba firiyo baa cabaadkooda aragteena in meelo badan ay isxiraan dam oo wax ka soo neeqdaha la waayo oo wax ka soo faana la waayo oo qof ka soo dhaqleeya la waayo oo booto iyo been abuur la waayo oo gabdho dambe aan laga soo caayin oo dumarka Soomaaliyeed aan lagu aflagaadeen oo maatada iyo maxasta aan lagu ogaas asxiri doonaan khayr badan baa idin rajeynaya shar gareeya firiyoga